marar badan waxaa dhacday inaadan ku qanacsanayn noloshaada halka dad badan oo dunida ku nool ay ku riyoonayaan noloshaada oo kale inay helaan wiilka beerta jooga wuxuu arkaa diyaarad dushiisa maraysa wuxuuna ku riyoodaa inuu duulo laakiin bayloodka diyaaradda wada wuxuu arkaa beerta quruxda badan wuxuuna ku riyoodaa inuu guriga ku soo noqdo si nabada haddii taajirnimadu tahay sirta farxadda kuwa badan oo taajiriin ayaa ku noolaan lahaa nolol aan stress iyo buuq lahayn laakiin kuwa saboolka ah waxay guryaha dhisaan ama alaab soo xamaalaan iyagoo heesaya oo faraxsan haddii xukunka iyo awooddu xaqiijiyaan amni madaxda ayaa lugayn lahaa iyagoo ilaalo wadan laakiin kuwa u nool sida fudud ayaa casriye iyo caways ku qaata maqaayadaha hawada furan weliba iyagoo keligood ah haddii qurux iyo magac keenaan xiriir waara kuwa caanka ah ee heesa ama filimaanta jira ayaa yeelan lahaa guurka ugu wanaagsan laakiin waxay hadda heestaan diiwaanka furiinka ugu badan ee dunida haddaba farxadda iyo qanacsanaanta nolosha kuma xirna xoolo badni darajo xil muuqaal iyo magac waxay ku xiran tahay sida qofku ugu qanacsan yahay halka uu joogo iyo waxa uu ku haysto waxay ku xiran tahay sida qofku ugu xiran yahay rabbigiis sida qofka carabkiisu u baro uguna celceliyo xuska alle subxaanahu wa tacaala xusuusnow wax kastoo aad haysato waxay ka sugnaadeen xagga alle subxaanahu wa tacaala ku xirno oo ku xamdinaq alle xilli kasta